quudinta dadka dhimirka xanuunsanaya ee magaalada Hargeysa waxay ka bilaabeen siliya biyo. Maxamuud Daahir Siciid oo ka mid ah ururkaasi ayaa sheegay in dalka UK ka yimid isla markaana uu dalka Soomaaliland u joogo sidii dadkaasi xanuunsan u caawin lahaa, isla markaana ururkan uu qayb ka yahay sidii taageero la xad u gaarsiinaya dadka xanuunsanaya. waxaan ahay qolada Fariiska Cardiff ama UK ee ururka Somaliland Mental Support Organization. maanta waxaan joognaa Hargeysa waxaan qayb ka ahay teamka halkan ee caawinta iyo quudinta bishan Ramadaan ee maanta qayb ka nahay. muhiimadda ugu weyn ee horta maanta halkan ka faa'iiday waxa weeyaan in la ilaaway dadkii dhimirka ka xanuunsanayay ee waaheen ku gubtay. waayo dadka fiyow ubaynu u ololeynaa shacab iyo dawlad iyo qurbajoog iyo cid waliba. waxaa jiray baa la inta sokobka sida warka ku helay ilaa 50 qof oo waaheen area ku jiray wax ku dhow jiro dadka iskala noolaa. dhinaca kale Dr. Mustaqiim Ahmed oo ka mid ah ururkan ayaa waxa uu sheegay inay bilaabeen ololaha quudinta dadka dhimirka xanuunsanaya ee jooga magaalada Hargeysa, isla markaana ugu talagaleen bisha barakeysan Ramadaan maadaama dadku ay soo yihiin in dadkaasi ay gargaaraan. waxay bulshadu u jeediyay in ay ka qayb qaataan dadkaasi dayacan ee dhimirka xanuunsanaya. oo taariikhdu ay tahay maanta oo ay Ramadaan tahay waxaanu ku jirnaa ololaha quudinta dadka maanka ka xanuunsanaya ee magaalada Hargeysa ku daadsan, kuwaasoo walaalo muslimiin ay isku tageen kala damqadeen maadaama oo bisha Ramadaan meelihii ay dadka xanuunsanaya wax ka cunayeen ayna jirin, hudheeladii iyo xaafadihii aan cunto lagu karinaynin. dayac badan baa halka aanu ka aragnay. marka waxaanu isugu tagnay si aanu dadka walaalaha ah ee xanuunsanaya maankoogii waayay in loo sameeyo quudin cuntaa loo soo kariyey. marka magaalada Hargeysa xaafadaheega ayaa loogu tegayaa cuntadaasi, tiim u diyaarsan inay dadkaasi cunto u qaybiyaan bisil iyo biyihii bisha Ramadaan oo dhanna ololahan ugu socdo.